jaamacadda waxaan dhigtaa Syracuse University oo ku dhex yaalo magaalada New York. waxaa igu qabsaday gabar aan isla deganahay inay qur'aanka kitaabka ilaahay intay soo gaday ay jarjartay ay masqusha ay ku dhex tuurtay marka isla markii aan sabir ayaan ka qaaday waxa uu gudbiyay dadka maamulayaasha iyo saaxiibahayga iyo dadka kulli oo qaraabaha iyo soo dhawaa si ay u arkaan gabadhanayto xumaatada ay noo geysatay. marka qol baad isla deganeedeen ma weydiisay sababta ay u samaynayso sida? maya ma weydiinin badanaa haddii oo anaga dhibaatana soo gaarto waxaan markastana nagu sheegaa inaan anaga aan dadka aan wareysanin aan wax weydiinin si dadka naga weyn ama dhexgalaan ee iyaga la fariistaan ay weydiiyaan. waxay dhegaysanaysay hadalayaasha Donald Trump uu ka hadlayay iyo kuwa KKK la dhaho ay dhegaysanaysay oo haddana madowga iyo dadka kaleeto oo aaminsan inay bini aadamba ay ahayn. marka tan iyo markii Donald Trump loo doortay xilka madaxweynaha maxaa isbedelay gaar ahaan weliba magaalada New York ee asaga uu ka soo jeedo? wax badan ayaa isbedelay marka hadda oo la dhahayo dadka qaxootiga ma soo geli karaan wixii Syracuse degan dhan hal maalin la iskugu wacay waxaa la isugu tagay airportka oo dhahayaan qaxootiyaasha way soo galayaan anaga waan ogolnahay wax oo diidi kara ma lahan adiga kaligaaga go'aan ma gaari kartid anaga ogol. marka Khadiijo adiga hadda jaamacaddii waad dhigataa weli waad wadaa xiriirka caalamiga ah barataa qorshahaaga mustaqbalka marka muxuu yahay maadaama dhadhaab aad ka tagtay adigoo 15 sano jir ah? qorshahayga waxa waaye hadda saan aan kula hadlaaya waxaan bilaabay women's empowerment gabdhaha iyo maamayaasha badanaa ani waxaan aaminsanahay inay adduunkaas ay wada joogaan kulli inay ka dambeeyaan howl kasta oo la qabto waxay noqotaba saas daraadeed haddaa anaga aan gabdhaha ay iskugu imaadaan ay leadership position ay qabsadaan ay isku dayaan inay bartaan hooyo ayagoo yihiin ayagoo walaalo ay yihiin ayagoo xaas ay yihiin marka saas daraadeeda influence ay leeyihiin family hadday noqoto at the same time hadday public ay noqoto hataa ayaga ayaa maxaa dhahay meel kasta ay wax ay ka qaban karaan codkoodana zaa'id ayaa loo qiimeeyaa. Khadiija marka ma ku qorjeysan tahay inaad ku soo noqoto dhadhaab oo aad howl ka qabato ama Soomaaliya aad ku soo noqoto oo ka shaqeyso? ha taasayto waligay niyadda ay ku jirtay waxaan rajaynayaa jaamacadda markay ii dhamaatay inaan United Nation la shaqeeyo oo qaxootiga kusoo noqdo siday noqoto badanaa waxaa maqlaa United Nation hataa dhex gashid wax badan isma bedelayaanba laakiin hataa qaxootiga naftirkiisa ku noqoto aniga Kenya ayaan ku dhashay 2015 hataa Kenya waan joogay waan arkay rafaadka iyo waana dareensanahay anagoo ilmo ahaa zaa'id uma fahmin inkastoo aan qaxooti aan kusoo dhashay aan kusoo koray ay la ahayd laakiin markaan aan America imaaday aan waxbarashada oo sare aan gaaray aad iyo aad ayaan ugu xumaaday saaxiibahayga walaalahayga iyo kuwii iga yaryaraayeen oo maanta fursadaan haysto ay haysanin oo rafaadkaas ay ku wada jiraan. marka yacni macnaha waxaa ula jeedaa miya qoyskiina badankooda weli waxay joogaan dhadhaab? yes walaashayda oo iga weyn gurigeena kulli u weyn waxay joogtaa qaxootiga iyo ilmaheeda adeeryaashayda hataa adeerkayga iyo eedadeyda markay waxay ahaayeen flight January ay imaan rabtay eedadeyda adeerkaygana February 15 ayuu rabay inuu Syracuse nala imaado New York laakiin inkastoo oo beenka refugee loo diiday inay soo galaan saas daraadeeda oo madaxweynahaasita hadda saacadan laga joogo way cancel gareeyeen flightkooda markii saas daraadeeda aniga waxaan maalin kasta iyo iskuulkaanayto iyo waxbarashadaanayto iyo howshan qabta ugu dadaala waxaa waaye maalin maalmaha ka mid inaan qaxootigaasayto oo dhadhaab aan horumar gaarsiiyo.